kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la daaladhacaysa weeraryahan la'aan iyadoo kooxda laga dareemayo isbeddelka bixitaanka Diego Costa kaasoo kooxda kubadda cagta Chelsea uu ka dareemay macallin Antonio Conte oo laftiisa daba raacay xilli ciyaareed kadib. Chelsea waxay hadda doonaysaa inay soo qaadato ciyaaryahanka reer Argentina kana tirsan kooxda kubadda cagta AC Milan, milkiyadiisuna ay leedahay kooxda reer Talyaani ee lagu magacaabo Juventus ee Gonzalo Higuain. Majalada Marca ayaa hadda waxay fahansan tahay in Chelsea ay hadda doonayso inay tartiib la u dhameystirto saxiixa ciyaaryahanka lagu magacaabo Gonzalo Higuain oo la fahantiisu doonay inuu ka baxo kooxda AC Milan oo aan qayb ka ahayn guud ahaanba tartamada Yurub. Naadiga AC Milan waxaa ku sugan xidiga badan oo dhanka weerarka ka ciyaara sidaas oo ay tahay wuxuu ka mid ahaa laf-dhabarta kooxda uu hadda haysto Gennaro Gattuso. Ugu dambeynna waxaa Milan ay cadeysay in xidigan si toos aysan ula wareegi karin kadib markii ay amaah kaga soo qaadatay naadiga Juventus. Marka waxa uu ku waramayaa in Chelsea ay hadda ka xiisa dhacday labadeeda weeraryahanee kala ah Alvaro Morata iyo Olivier Giroud, waxaana iminka ay isha ku hayaan soo xirigelinta waqtiga ugu dhow ciyaaryahanka Argentineska ah Juventus ee milkiyadiisu leedahay Milan ka tirsan Gonzalo Higuain oo 31 jir ah.